السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان ولا له يجور يوتيوب كيغا سو دوادا مر والبا قعمه فرن وجه فرن قلبي فرن وولاشين عاشلدان عawada maxay idin wadaa caashaladan cawada waxay idin wadaa muuqaal oo baryahan social media dhex wareegayo oo gabar Soomaaliyeed oo dhibaataysan oo cawanayso sheeqeeni weynaa Allah weyne Sheekh Shibili ee ku soo cawanaysa ay leedahay Sheekh Shibili waxaan rabaa inaad ka hadashid dhibaatooyinka ay iga haysto misaayid ku yaalo wadanka Kenya especially oo la dhaha Al-Hidaayo. Gabadhan waxay ka cabanaysaa dhibaato badan ee ka tirsanaysaa misaayidka. Waxay dhahday Sheekh Shibili ha loo gudbiyo codkayga hadduu maqlaayo ha la gaarsiiyo. Kollay asagana wuu soo hadlay sheeqeena qaybteeda iyo qaybtiisaba labadoodba insha Allah waan ka hadli doonaa, waan idin tusayaa ila daawada horta markaas kadib ayaan aan ka farcelin doonaa haduu Ilaahay idmo, waana ila socdo insha Allah ila daawada. بعد السلام waxaan arkay xalay video jimcihii ka soo horeeyay oo sheekheena weyn Sheekh Shibili duubay oo macallimiinta Soomaalida ka bahla dumaray. macallimiinta sheekha waxa uu ka sheegay waxna ay ka jiraan waxa kama jiraan, laakiin waxaan rabaa sheekha inaan u sheego aniga waxaan ahay gabar Soomaaliyeed, gabar muslimada, hooyo ilma haysato, hoosta adiga masaajidka hoostiisa baan aniga ka shaqaysanayay oo meherad ku lahaa. Sheekh Shibili wuxuu cambaareyn iyo dambiyada ay galeen uu aad ugu cadeeyay macallin dugsiga ugu dhow guriga saddexaad ama guriga afraad ku yaal. aniga waxaan ku dulmanahay hoostaada meesha aad kor ka qudbadeenaysid hoosteeda maan deganahay oo aan ku dulmanahay. waxaan ahay hooyo ilma haysato, meesha saasaa ku furay oo biloodana furanaa corona yimid. corona markuu yimid masaajidkii waa la xiray. dadka masaajidka meesha soo geli jiray meesha masaajidka ku tukada baa soo gala. meesha waa dhulka hoose, maadaama dhulka hoose tahay dadka ku tukada oo qof qayb ka mid oo baratay baa soo gasha. masaajidkii markii la xiray dayaa soo galay, cid ma soo galin, kiradii way nagu socotay. masaajidkii markii la xiray saasay kiradii nagu socotay. annagana bilaan noqonay oo wixii aan ka soo doonay annagana waan weynay, wixii aan bilaadan waan weynay oo kiradii waan bixin weynay. sababta masaajidkii waa la xiray markay sanad iga xirnay oo kiradii aan bixinayay kira bil kasta meelaha aan ka keenayo bixinayay baan markii dambe waxaan go'aansaday lacag aan hel markaan arkay lacag aan ku furto kaliya kira dahabkayga inaan soo furo gato. war meeshaan lacag baa iga gashay, waan hagaajiyay, alaab baan keenay, wax kastaan keenay. maxaan ku dhahay walaalayaalow xir iyo lacagtii bixi isbuukay darina, wax ma karin kartid, xir lacagtii bixi, 3 amar oo isdul saaran isbuukay darina. ma qaadi karo, awoodeyda ma aha, hooyaanahay, ilmaan haystaa. waxaa la yidhi waxaa sidaa jira culimadii aan dirsaday iyo xitaa aan dhahay war guddiga hadda ay dulmayaan bishuuq ha ogaada sheekha arrinteeda gaarsiiya. maxaan ku dhahay waxaa la yidhi may arrintan waa dhammaatay, iskoolaadkiina way furan yihiin oo waa la furay. ma aadin wiilkayga iskool, wallaahi oo bilaahi oo tallaahi wiilkayga saaka ma quraacanin. maantana saacadda aan hadda hadlaya oo fideoga aan duubayana waa 12 iyo bar. qofkii sida kale u garanaya waa duhurkii oo waxay salaadii duhur ka dhiman tahay. salaadii duhur adinkii wax yarba ka dhiman, intaan hadlayaa laga yaabaa haddii la adimo. ilmahayga iskool ma tegin, duhurkii oo ay tahayna ma quraacan. waxaan ku quraacsanayana wallaahi oo bilaahi oo tallaahi aan haynin. masaajid markaan maqlo dahabkayga bixin jiray, weligay masaajid lacag kuma bixin. ilaahay wuxuu igu ogyahay iga sarreeyaa. masaajid baa maanta wax loo qabanaya ama wax ka maqayn ama wax kasaas ka yihin marka la dhaho dahabkaygaan bixin jiray. maantana waxaan ku fikirayaa masaajid haddii lagu adimo agtiisa loo maraya ku tukan doontaa amnigayga inuu saameeyo oo beri laga xoog sheegto la yirahdo waddanka adigu ma dalmo ya anaa u dhashay lagu dhaho oo maxaan ku dhahay heer kasta iyo hantidaad kasta la ii gaarsiiyey. askar baad ku mas haddaan xiri haddaan faray sheekh waxaan leeyahay sheekh hoostaada culimada. markan waxaa dhacday kuwii shaqaalaha oo mas'uuliyadda ka ah meesha oo guddiga ah maamulka hayay masaajidka
iyo gabadhii ay isqabsadeen maxayna isku qabsadeen waxay dhaheen cunto kuma karin kartid markuu dhihino anaga cunto kuma karin kartid walaal markaan waa inaad ka gurtaa amarkeena maqli weysay waa inaad ka gurta meeshii waxaa laga yaabaa masaajidkii barbaleen oo micnaha nadaafadiisa xaggiisa inay dhibaato ay ku qabaan ay ka hadlayaan gabadhana risq ay ka raadinayso marka abaayo qofka muslimka ah meesha hadduu kaa kiriyey uu ku dhaho iga bax wuxuu xaq u leeyahay iga bax hadduu ku dhaho inaad ka baxdid marka koowaad waa inaad ka baxdaa alaabaa kaa gashay kiraa kaa gashay waad sharaxday meesha waa ka shaqaysay alaabaad dhigatay waa qarash gelisay waxaa dahabkaada soo gaday gabadhan waxay dhahday dahabkaygaan soo gaday meeshii aan ku furtay markaa shalay aad furanaysay risqaad ka raadinaysay maanta qofka guriga hadduu isaga leeyahay iga baxdu ku dhaho waad ka baxaysaa wuxuu leeyahay qofka notice iga bax meel raadso meesheeda guriga meesha waa u baahannahay ama meesha looma ogolo in wax lagu sameeyo walaalay meel raadso dii lagu dhaho waxaa xaq u leedahay inaad alaabtaada qaadatid waqti lagu siiyo aad ka guurtid kow waxaan u malaynaa gabadhan markaan in lacag lagu lahaa oo kira ah masaajidka qolkii ka mid ahaa ida ay ka karaysatay dadkii inay lacag ku lahayeen gabadhan ha ahaatee gabadhii waxay ku kalifeen inay dhahaan naga guur alaabtina ka guro naga guure kiradeedana na sii waxay dhahday ma awoodo waxaan kiro ku bixiyo lacagta kiradana bixi markii lagu leeyahay lacag baa lagugu leeyahay saa u malaynaa in lacag lagugu leeyahay I think saas u malaynaya haddaan dambi ka galayna ilaahay allah wa alam kulay laakiin hadalkeeda saa u maqlay waxaan u malaynaa in lacag lagu lahaa gabadhan oo kirada xaggeeda ah marka gabadhay hadday iida waxay cuntaba ay weysan tahay maxay kira ku bixinaysaa hadday ku dan sheegatay gabadha waxaa xaq u leedahay guddiga meesha mas-uulka ka ah qofka gabadha saas dhahay naga bax ka guur meesha dhahay oo mas-uuliyadda ahaa dadaa kasii weyno inuu dadka u bandhigo uu dhaho gabadhan kiradii ma awoodo waxay dhahdaa ma awoodo guurna waad idhahday ha iskugu keedarin markaan waxaad xaq u leedihiin inaad isla tashatiin dadka guddiga aad u dhex dhigtid aad dhahdid gabadhan waxay awoodeeda tahay guur waa dhahnay meesha ka guur waa dhahnay laakiin kira ma hayso waa beyd ilaah beydka ilaahay lagu cabudayo waay waa beydka qur-aanka ilaahay lagu akhrinayo waay meesha muslimiinta loogu gargaari lahaa waa inaad gabadhii wax u fiirsid xaquuqdooda xaq waxay u leedahay inaad wax u fiirisiin maadaama aad ku qasabteen aad dhahdeen meesha ka guur banay waxna laguma karinayo naga guur la dhahay haddee iida awoodeed ay ahayn inaad ku qasabtiin ma ahayn kirada in loo cafiyo xaqi u leedahay gabadhaas kiradaas hadday dhiibi weyso in loo cafiyo ay xaq u leedahay maanta qof muslin ah hadduu idin imaado oo masaajidkaas idinku imaado oo idin dhaho maanta waa dhibeysanaya halay waa la caawinaya ka waran qof muslin ah oo risqi asagoo ilmihiisa siin lahaa ta haysan oo haddana loogu sii daray ka gur waxay xaq u leedahay inay guurto oo loo cafiyo la walaalaya haddaad kirana haynin kiradii aad bixin karin bas meeshaan wax laguma karin karee walaalay meel kale raadso buuquna meeshuu ku yaraan lahaa sheekadan social media ma imaan lahayn hadday saas loo isticmaali lahaa gabadhan saaca u dambeysay intii cabashada gabadha ay soo baxday waxaanu ka howlanayn inaan helno waxa jira iyo waxa xal noqon kara waraysiga maamulka kadib salaadii jumcada kadib waxaanu la kulannay gabadha dadka xigtadeeda ah saan gabadhii u helno maanta casarkii kadib waxoogay maqribka ka hor ilaa cishahana maamulkii masaajidka gabadhii iyo dadkii xigtada ahaa ee la dhashay
waanu isu wada nimid kadib markii aanu dhagaysaneen gorfaynay sida wax u dhaceen waxaa alxamdulilah iyo fadli ilaahay noo suura gashay inaan tabashooyinkiina xallino gabadhii iyo maamulkii masaajidkuna iyagoo iscaafiyey oon waxba isu qabin ay caawa kala galbadeen gabadhii culaysyadii iyo mushkiladii iyo tabashadii jirtayna qaybna waan xallinay qaybna waxaan ku howlanahay saan u xallin lahayn marka hawshaasi insha allah alxamdulilah khayr bay kusoo dhammaatay sheekh shabiil wuu ka hadlay wuxuu dhahay sheekadan waa galay waa la hadlay familkeeda anaga iyo guddiga isla fariisanay waa isla hadalnay sheekada waxaa lagu dhameeyey in liscafiyo ayaa lagu heshiiyey qaarna waa dhameeyey qaarna way dhiman yihiin uu dhahay inta dhimanna sheekheena waxaa laga rabaa inay wanaag iyo sharaf iyo qiimo horta inaad ku dhamaysid adigana ajar baad ka leedahay dadkan ishaysto horta ninka meesha mas-uuliyadda ka ah meeshaas waxaa laga yaabaa gabaray shalay waxaa dhahda dahabkayga masaajid marka waxa lagu darsanaayo masaajidka waxa awoodeyda tahaan ku darsan jiray waxaa baxsanaysa sadaqay kuu tahay sadaqadaas maxaad la bixis maxay tahay masaajidka ku kabaysay maanta waxaad ka sheeganaysa waa masaajidka shalay adi sadaqada ku darsanaysa waa midkaad ka sheeganaysa aad sheeganaysid sadaqadaada waxay iska gelin masaajidka qofka maanta dhibaatada aad ka sheeganaysa masaajidka kuuma geysanine qof bini aadan oo shakhsi ah oo mas-uuliyad loo dhiiba la waa qofkan qof bini aadan ah shakhsi ah waa qofka dhibaatada kuu geystay oo kuleh kugu amraayo uu kuleeyahay kirada bixi waxaa dhahday sheeqyo kala u dirsaday dadaan waana u dirsaday waa laygu soo gacan seeray waxaa dhahday magaciisa waa inaad bixisaa aa lagu dhahay hadda sheekh shabiil galay kawar sug inta dhimanna in laguu soo dhammaystirayo waa kuu sheeg wuxuu dhahay in qaarna waa ka hadlay waa ka heshiisiyey in la sacafiyo waa sheegay uu dhahay inta dhimanna ha laga sugo asaga sheekh shabiil ha laga sugo abaayo adigana waad soo hadashay mar labaad waxaa dhahday sheekha halis cafiyu dhahay laakiin wuxuu dhahay sheekha afkiisa waxaa laga haya afkiisu aan ku maqalna waxay tahay inuu dhahay sheekha qaar waxna waa dhameeye waxna waa ii dhimaanye ka sug walaalay orod faa'iido ma lahan meesha wax ka raadinaysa ma jirto meelka si kale wax loo fiiriyaa meel murun galayna faa'iido ma lahan risqaada kuguma fiicneed meel kale ka raadso waana ka hadlay intaan ka hadli kara markaan waxaan leeyahay sheekheeniyo gabadhan saad ku caawin lahayd oo kiradii haddii kira lagu lahaa kirada loo cafin lahaa ha loo raadiyo nin kasta wuxuu awoodiisa tahay wax kale uu siin karo awoodiisa tahay gabadhaas lagu caawin karana ha lagu caawiyo qalbigeeda inay xumaan gelisana ha laga ilaaliyo gabar soomaaliyeed qof muslim ah waa qof muslim maanta dhibaysana oo loo gargaaraa adna ajar xisraad allah kaa siiyo abay adigana waxaan ku leeyahay sheekha intuu kaaga soo jawaabay inta dhiman oo saga ka soo dhameystiraay iska cafiya lay dhahay social media soo fariisay waa cafiyo waxna la isku haysto ugu dheh horta ninka ku dhahay xukuma laha hadaa rabta adaa joos leh dheh waa cafiyo waxba uma haysti hadaa rabta in gudaha ku heysee meel la fadhiisay sug sheekha ka war sug abaya aho ordin wax kasta natiijis in laga salgaar way fiican tahay ka war sug sheekha soo sheega waxay tahay inuu wax dhameey oo waxna dhiman yahay ma inuu wixii waa dhameey ma la soo istaagan sheekha ma dhihin waa dhameey ka war sug markuu sheekha wuxuu ku leeyahay ka war sug abayo kow xaq waxa u leedahay in horta inay ku cafiyaan way fiican tahay ee ku dhahaan kiradii laga marway orod adna waxa risqaad inaad meel kale ka raadsatid allah kugu dumo insha allah saasa magaciisa noo balana dhinaca fiican ha la isku gargaar muslimku wuu isku gargaaran hadda naxariista la isku falin faa'iido ma keenayso insha allah kulanka labaad
walaalaha aan ka cabanayna inaan cafiyo meeshaan inaan ka sabro waxaan rabaa inaan u caddeeyo dadka isu aflagaadeynaya ee dhahaya sheekhu miyuu ku aaminsiiyey sheekhu miyuu ku aaminsiiyey walaalayaal sheekha ima aaminsiinin waxna ima siinin aan meelaan ka dhaafa lahayn labadaa shay wuxuu yidhaahday cafi walaalahaagii ku dhibaateeyey shayga labaadna wuxuu igu yidhi meesha iyo wixii kaa galay iska cafi oo ka samir iyo cabashadii iyo kulaylkii dherigii kulaylka waxaa ka keenay karkaa la yidhi aan markii hore soo bandhigay ilahayna wuu nagu ogaayo wax been kama sheegin shaykayna xabad xabad baan u kor istaajiyey in wax allaale wixii dhibaatay ugu dhacay shayga waan kor istaajiyey isagoo dadkii aan cabanayay ay la joogaan labadaa shay buu iga dalbaday wuxuu igu yidhi meesha wax allaale wixii kaa galay ka samir waxna la iigama celin waxna la igama siin meel kale allah kaaga arsaaqo adigoo sharaf leh wanaag leh wadaadadii adigan inaad iska qabsatin waa laga fiican yahay waa baytullah waxaa laisku haysto wax fiican maahan waxaan ku dhihi lahaa walaalay rasiqaada meel kale ka raadso aadna is cafiyey haddii laydana sidaad isku cafiseen hadal inaad soo gelisid ma ahan waa la is cafiye laakiin lagugu hanjabaadana ma ahayn in dhibaato lagugu geystana ma ahayn in wax kalena lagu sii raacdo ma ahayn total waxaan leeyahay ilaahay rabbi raxmaanka laga cabsado masaajidihii hadday dhibaatada ka socoto meel iskugu gargaaray kalama lahan idinkana allaha idinsoo hadiyey inta dhibaatadan samaysatay oo masaajidka sumcadiis inay ku ciyaarta aad raadinaysid adigay kaa go-on tahay masaajidka inta hadda lasoo qaatay masaajidka magaciis lagu soo dhawaaqay dhibaatada ka imaaday adaa keentay sharafteena ka weyn inaan masaajidka ugu gufno because masaajidku waa baytullah masaajidkaas dhibaato kuma geysan dadka shaqaalaha dhibaato geystay abaayo markaa dhawaaqaysa waad inaad ku dhawaaqdaa shaqaalaha aad dhibaato ii geystay ma masaajidka dhibaato kuma geysan masaajid laga adimana qofka adima iyo qofka dhibaato ku geystana isma lahan lagama xigo masaajidka masaajidka ummadda Soomaaliyeed islaamka ummadda Nabi Maxamed wixii shahaadara ayaa meeshaas ay ku wada sameeyeen masaajidkaas wuxuu ka dhaxeeyaa dadka muslimka ah oo diinta islaamka haysto oo ashaadanay dhana uu ka dhaxeeyaa abaayo qof ka xiga malahan hana dhihin masaajid damba haduu adinkiis aan maqan inaan ku tukanahay ma u malaynayo subhanallah ka tooba keentaas adigana waxaa ilaahay kaaga baryaynaa in meel gabar rasiqada kaa siiyo meeshaan had buuqad iyo barbaleen haduu meesha daa ku dhibootan waa laga haajiraa haddaad maqaayidaas dhibaato badan masaajidka xaggiisa lagugu geystana meel kale maqaayid ka furo noloshaada meel kale ku raadso ummad inta islaane ummadda Nabi Maxamed eena gabadhaas u gargaari kartan ha u gargaarto say meel kale u furato Nabi Maxamed ee awoodeeda tahayna oo gabadhan u gargaari kartan ha u gargaarto videoga haduu soo gaaro ninkii wax u dhiibi kara ha u dhiibo ninkii taleefankeeda rabaan insha Allah taleefankeeda waa soo raadinaya adna waxa awood inta islaana ummadda Nabi Maxamedna wixii awoodiisa tahay haddaad ka roontiin inaad ku kabtiin gabadhaas ay meel kale ku furan lahayd oo loo caawin lahaa banaanka rasiqeeda uga raadsan lahayd wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saasaa ilaahay idinkaga baryaa insha Allah